بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan dadka Soomaaliyeed ee daawanaya meel kastoo aad joogtaan filimkan aan duubayo waxa uu qayb ka yahay barnaamijyo anigu aan daawaday oo ku saabsanaa barnaamij laga sii daynaya telefishinka Somali Channel oo la yiraahdo isirka afka Soomaaliga laakiin markii dambe heesaha looga hadlayay heesahaas oo Cabdi Good kaga hadlay si kala duwana dad kala duwan ay uga soo jawaabeen anigana waxaan rabaa in fikirkayga qayb ka mid ah anigana aan halkan ka dhiibto kaasoo ku aadan barnaamijyada ama mawduuca markaasi laga hadlayay aniga waxaan rabaa sida ay uga hadleen saaxiibaday iga horreeyey inaan uga hadlo ma rabo oo aan heesihii tafsiiro oon idhaahdo heeskaas waa saas iyo heeskaas waa saas ani xaqiiqdii afka Soomaaliga marka la yiraahdo waxaan isleeyahay dad badan kaa badiya inaan ka hadlo ma rabo laakiin aniga fikir kale aan qabaa iyo barnaamijkan ku saabsan barnaamijka waxaa hore uga hadlay nin la yiraahdo Siciid Bulxan waxaa ka hadlay saaxiibkay Dahar Cabdulla Cali Sow waxaa ka hadlay abwaanka iyo heesaaga Xuseen Shire ciyaar jecel qaab isku mid ah ayaan u maleynayaa inay uga hadleen aniga ma tafsiirayo heesihii laakiin si kale aan uga hadlaya arrinta mawduucayga waxaa la yidhaahdaa jihaadka heesaha markaan leeyahay jihaadka heesaha kolley waa dhadhansan doontaan sababta aan sidaas u idhi sidiisaba horta barnaamijkan isirka afka Soomaaliga ah waxaa soo daaya telefishinka la yidhaahdo Somali Channel marka uu soo daynayo waxaa barnaamijka soo daaya haddana oo ka hadla Cabdi Good waa kala saaraynaa Cabdi Good iyo Somali Channel aan ku horeyno Somali Channel horta Somali Channel barnaamijkan uu soo daynayo waxaan filayaa inuu looga hadlo isirka afka Soomaaliga haddana heese isku bedelay inta mawduucan daawaday heesaa looga hadlaayay sideeda horta Somali Channel telefishinka la yiraahdo waxaan isweydiiyey markii aan arkay sida heesaha dhibaatada lagu geysanayo telefishinkan isagu horta heese ma soo dayn jiray markii hore jawaabtii soo baxda waxay tahay inaanu heese soo dayn jirin haddii uusan heese soo dayn jirin maxay tahay sababta ay heesaha u soo dayn waayeen taas jawaabteeda waxaa iska leh cidda iska leh telefishinka oo go'aan ka gaartay in markaasi ay ka joojiso telefishinka heesaha go'aankooda waa ku saxsan yihiin aan qaba aniga sababtoo ah iyaga iskale telefishinkooda waxay rabaanna waa ka soo dayn karaan wixii markaas khalad ay u arkaanna waa ka dhaafi karaan saxaafad ahaan marka loo fiiriyo go'aankooda waa ku saxsan yihiin aan qabaa aniga inay heesaha ka joojiyaan laakiin heesaha ha ka joojiyaane sababta ay uga joojiyeen iyagay gaar ugu tahay hadday diin ahaan uga joojiyeen waa arrin ayagu gaar haddii ay waqti u waayeenna waa arrin u gaar kolley waqti uma waayine Cabdi Goodba warkiisa waa sii daayaan aan qabaa aniga laakiin sababta ay ayagu u daayeen waa ku saxsan yihiin midda kale marka haddii aysan telefishinku uusan soo daynin wax heese ah maxaa qasbay marka in heese ay ka caayaan ama heesihii ay caayaan oo ay dagaal la galaan heesaha oo ay Cabdi Good u adeegsadaan taas waa horta midda isweydiinta leh ee Cabdi Good ma aha dhibaatada fanka lagu hayo Soomaaliyeed ee waa telefishinka Somali Channel aan dib u xasuusanno waxaan isleeyahay ujeedda fog ku jirta meesha ujeeddadan waa geli doonaa insha Allah tacaala haatan ka hor waxaan u maleynayaa 2010kii in ay ahayd in al-shabaabku ay soo saareen go'aan ah idaacadaha magaalada Muqdisho ku yaala in ay ka joojiyaan heesaha iyo weliba muusiga waa tii laga joojiyey muddana iska taagnayd oo ilaa markii dambe xamar laga saaray shabaabku heesaha aan la sii dayn jirin muusiga aan la sii dayn jirin wax astaan la yiraahdo aan laga sii dayn jirin taas beddelkeeda tii oo kale ay muuqato telefishinkan hees ma ogolayne maxay tahay sababta ay heesaha u caynayaan ma tii oo kale ma mashruuc dhinaca al-shabaab ka yimid oo loo soo maray Somali Channel miya oo dagaal lagu qaadayo heesaha oo dadka la leeyahay heeskaas uu sameeyay heeskaasna waa qof marxuum ah oo dhintay Allah u naxariistay la leeyahay waa sinaystay heeskaas sina loo sameeyay wax la yaab leh telefishinku marka arrintii miyuu daba socdaa isiri hadda ka hor ay ku fashilmeen al-shabaabka
oo ay doonayeen inay ka hirgeliyaan magaalada muqdisho in heesaha laga joojiyo. sababta aan saas u leeyahay waxaa waaye cabdigood aqligiisa kuma keeni karo inuu ilaa xad noocaas oo kale uu yidhaahdo heeskan waa saan kan waa saan waxaad aragteen oo aad dhegaysateen in cabdigood dhex gala ma rabo. laakiin waxaan u arkaa cabdigood qof la adeegsanayo oo ay adeegsanayaan dadka iskale telefishinka. aniga horta telefishinka cid iskale xataa ma aqaano, weligay xataa muuqal magaciisa meesha uu ku nool yahay ma aqaan. laakiin waxaan aqaanaa cabdirasaaq balaag oo muqdisho jooga oo mataqaanaa madax ka ah telefishinka Somali Channel. waxaan aqaanaa cameraman la yidhaahdo muuse jiisow. sidoo kale waxaa xamar isla joognaa ninka la yidhaahdo koronto oo hadda nairobi ku laabtay laakiin muqdishona la jooga maalin dhaweyd. raggaas oo kale aan ka aqaana iyo gabdho kale oo ka shaqeeya telefishinkaba. hase yeeshee cid kale oo aan ka aqaano telefishinka maba jirtaba. marka maamulka telefishinku iyagu jihaadkii waxay bilaabeen oo aan dhihi karaa heesaha, sababtoo ah wiilka yarkaa ee bombada tuuraya ma yaqaano sababta uu bombada u tuurayo, dadka uu kulaynayna ma yaqaano sababta ay u dhimanayaan, laakiin waa wax loo soo sheego laleeyahay waxaa samee. marka telefishinku haatan wuxuu bilaabay inuu cabdigood adeegsado uu yidhaahdo cabdigoodow bombadan tuur qofka hartaa ku dhacdee. cabdigoodna mataqaanaa meeshaas uu bombadiis iska tuuraayo, isaga xataa ma garan karaa sababta markaas uu bombada u tuuraayo. hadduu ku jihaadayo isagay u taallaa, laakiin nuxurka warkayga waxa uu yahay telefishinka ayaa ka dambeeya arrinta ku saabsan in lagu aflagaadeeyo qof dhintay qof nool la yidhaahdo heesku waa saas. aniga marka arrin kalaa jirta, hadda waxay maraysaa in la yidhaahdo allah u naxariistee heeskii yamyam ee la yidhaahdo gobaad oo xasan aadan samatar qaada, dadkan ay u yaqaanaan guulad ma joogaa. waxyaabihii cabdigood uu ka hadlay kolley inaan dib ugu noqdo ma rabo, ilaa heer zina la gaaray iyo faaxisho. dhaqanna uma laha Soomaaliya inay faaxisho iyo waxaas ku haysto. hase yeeshee hadda waxaa soo socda heeskaas murtad waaye, heeskaas wixii la dhihi jiray riddo waaye, heeskaas hebelka suubiye riddo waaye, heeskaas hebelka suubiye murtad waaye. waxyaabo wax ka daranaa soo socda, cabdigoodna uu soo wadaa. sababtaan saas u leeyana waxaa waa wax loo soo dhiibay, waa maalinba istaabaa loo soo dhiibaya. marka aniga daahir cabdulcali sow iyo xuseen shiraac cayaar jecel iyo ninka la yidhahdo siciid bulxan iyo heeskii keliyahay tafsiireen oo waxay heesow saas waaye kan waaye kan waaye. war oohinta orgiga ka weyn meesha waxbaa ka dambeeya. sababta ka dambeysana waa telefishinka haddii uusan raalli keena cabdigood meeshaan iskama hantaclayeen oo iskama hadleen oo wuxuu doona ma sheegeen oo dadkuma caayeen. laakiin sababtu waxa weeye telefishinka ka dambeeya. telefishinku sababta uu markaas u sameynayo waxaan u qaatay inay tahay jihaadka heesaha wax la yidhaahdo, ma aha inuu isku soo caanbixinayo telefishinka xumaan iyo samaan wuxuu rabo uu dhegeystayaal ku kasbanayo. taas ma aha sidaas leeyahay. waxa weeye heesaha dagaalkoodii sidii shabaabka heesaha ula dagaalameen kula rabo inuu la dagaalo. riddo waaye heeskan, riddo waaye heeskan, murtad waaye heeskan, waxa waaye sino waaye heeskan, fulaan waaye. cabdigoodna maba yaqaanaba. cabdigood galaa la yidhi asna iska galaa. wiilka yarkaa shabaabka ahaa oo bombada loo soo dhiibi jiro iska tuuri jiro kala waaye. wiilka yarkaa ma yaqaana diinta oo bombada tuuraayo. hadduu yaqaano diinta ma tuureenaan qabaa. cabdigoodna fanka waxba kama yaqaano. hadduu fanka wax ka yaqaano dadna ma caayan dadna ma aflagaadeeyeen. cabdigoodna wuxuu ka dhigan yahay wiilkii shabaabka ah bombada tuuraaye. tvgana waxa uu ka dhigan yahay maskaxdii ka dambeysay wiilka bombada tuuraaye. marka maskaxda ka dambaysa cabdigood inuu bombadan iska tuuro oo dadka ku ijaafeeyo, Somali Channel ka mas-uula, ninka iskalaha ka mas-uula. aniga aragtidaasaan qabaa. sababta aan saas u leeyahay waa wax cad. kolley ani fikirkeyga waa intaasaan kusoo gabagabeynaya nabadii.